Hogaamiyaha Mongolia ee Genghis Khan wuxuu dhashay sanadkii 162 wuxuuna geeriyooday sanadkii 227. Wuxuu ka soo kacay bilow hoose si uu u dhiso boqortooyadii ugu weyn ee taariikhda, kadib markii uu mideeyay qabiilooyinkii reer guuraaga ahaa ee Mongolian Plateau. Wuxuu ka adkaaday burburkii weynaa ee bartamaha Aasiya iyo Shiinaha. Faraciisu waxay sii balaadhiyeen boqortooyadii, xitaa iyagoo u sii gudbay meelo fogfog sida Poland, Vietnam, Syria iyo Kuuriya. Markii ugu horreysay, Mongolia waxay maamushay inta u dhaxaysa 11 ilaa 12 milyan oo mayl laba jibaaran, oo ah qiyaastii baaxadda qaaradda Afrika. Dad badan ayaa la gowracay intii lagu guda jiray duulaankii Genghis Khan, laakiin wuxuu sidoo kale siiyay xorriyadda diinta maaddooyinkiisa, waxna wuu baabi'iyay wuuna jir dilay. Wuxuu sidoo kale dhiirigeliyay ganacsiga, wuxuuna abuuray nidaamkii ugu horreeyay ee boostada caalamiga ah. Genghis Khan wuxuu dhintay sanadkii 227 intii lagu guda jiray olole militari oo ka dhan ah boqortooyadii Shiinaha ee xilligaas loo yaqaanay Xia. Meeshii ugu dambeysay ee nasashada Genghis Khan weli lama oga sanadihii hore iyo halka uu ka yimid asal ahaan. Genghis Khan markii uu yaraa waxaa lagu magacaabi jiray Temujin, markii dambena wuxuu la magac baxay Genghis Khan, oo macnaheedu yahay boqorkii caalamka. Wuxuu ku dhashay qiyaastii 162 meel u jidha xadka u dhexeeya Mongolia casriga ah iyo Siberia. Genghis Khan wuxuu qabay ama aaminsanaa inuu dunida yimid isagoo gacanta midig ku haysta xinjir dhiig ah. Hooyadiis waxaa afduubtay aabihiis oo lagu qasbay si uu u guursado. Waqtigaas waxaa jiray qabiilooyin reer guuraa ah oo ku sugnaa bartamaha Aasiya ayaa si joogto ah u dagaalamayay oo muddo midka kale dhacayay. Nolosha Temujin waxay mid rabshad leh oo la saadaalin karin ka hor inta uusan 10 jirsan. Aabihiis wuxuu ku sameeyay dil qabiil oo cadow ah. Qabiilkii Temujin ayaa markaa ka tegay isaga, hooyadiis iyo 6 walaalihiis ahayd si looga fogaado inay goodiyaan aabahood. Muddo yar kadib, Temujin wuxuu dilay walaalkiis ka weynaa oo walaalihiis ka mid ah, wuxuuna la wareegay madaxda qoyska saboolka ah. Waxaa qabtay oo adoonsaday qabiilka ka tegay, laakiin ugu dambeyntii wuxuu awooday inuu baxsado sanadkii 178. Temujin wuxuu guursaday Borti oo u lahayd 4 wiil iyo tiro gabdho ah oo aan la garanayn. Wuxuu bilaabay badbaadin naxdin leh oo Borti ku saabsanayd kadib markii iyadana la afduubtay. Isla markaana wuxuu bilaabay inuu sameeyo xulafooyin, isagoo u dhisaya sumcad sidii dagaalyahano oo soo jiidanaya tiro badan oo raacsan. Inta badan waxaan ka ognahay carruurnimadii Genghis Khan oo ka yimid taariikhda sirta ee Mongolia, shaqada ugu da'da weyn ee loo yaqaan taariikhda Mongolia, iyo suugaanta oo la qoray wax yar kadib dhimashadiisa. Halkaana waxaa inoogu eg mawduucan aan uga hadlaynay taariikhdii koobnayd ee hogaamiyihii Genghis Khan. Janaalka dadka cusub subscribe noo saar, sidoo kale like-ta inaga ilaawi. aad iyo aad mahadsantiin. Salaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.